Soomaaliyeed gaar ahaan xildhibaanada ka soo jeeda goboladaas galbeedka iyo xildhibaanada USB oo hareeraha iyaga fadhiya waxa aan ka hadlaynaana ay tahay dhibkaas soo kordhay marka hore waxaan u tacsiyeynaynaa intii ku dhimatay ciyaartii ka dhacaysay stadium Xaaji Daahir oo cilmi Allah u naxariisto dhalinyaradii halkaa ku dhimatay samiriya imaan saadaqaan dhammaanteen Allah inaga siiyo ta kale waxaan leenahay intii ku dhaawacantay Allah caafiyo waxaan halkaan ka sheegaynaa walaalayaal dagaal wiil baa ku dhinta wiil kuga dhasho gobolka Awdal wuxuu ahaa gobolka ugu nabadgelyada badan wuxuu ahaa gobolka Soomaaliland dawladnimada ay sheegayso gobolkii laga soo sameeyay laga soo aasaasay ee dalkeedu tanaasulaadka faraha badan lagu sameeyay oo ayna oran maanta gobasha anaga dhignay anagaana sidii libaaxa inta weyn anaga iskala laakiin wax walba ay uga tanaasuleen in nabad iyo walaalnimo lagu wada daaqo lagu joogo waxaan ku baaqaynaa dadka degan gobolka Awdal inay soo celiyaan xasiloonidii iyo nabadii gobolku u lahaa waxaan leenahay walaalayaal Somaliland waa dad walaalaad ahaydeen dadooda dagaatiin wiil iyo abtigi baatiin dagaalkuna dhib u keenaa maamulka meesha ka talinaya waxaan leenahay waxa ka dhacay halkaa wixii ka dhacay 9-kii Soomaali weyn stadium Muqdisho ayaa xasuuqaasi uu ka dhacay garoonka Xaaji Daahir oo cilmi ahaa ciyaartoy ciyaarayay ma ahayn in xabad hoos loogu dhigo oo lagu laayo waxay ahayd xabadda in kor loo qaado oo lagu kala firdhiyo ku kala cararaan waana ka xumahay arrintaasi waa wax dhammaan ummadii maqashay ee Soomaaliyeed iyo Islaamku aad uga xumaadeen laakiin Soomaalidu waxay ku maamaadeen gacmo galjiro hoos baa loo dhaqaayay annagu maanta inaan sii raacno maaha waa sayna la yiraahdo dawladdu waa inay ka hadasho ragga laayay ee ciidanka qalabka sida magacooda ku laayay dadka ay laayeen waa dadkii ay ilaalinayeen ee waajibaadku ka saarnaa inay ilaaliyaan waxay garoonka u joogeen inay nabadgelyada sugaan laakiin ay qoysa Soomaaliyeed hooyo aabba Soomaaliyeed u waday ku tabcaan ku soo tabcaan oo si kastaba lagu soo koriyay lagu dilo loomay magin waxaan leenahay arrintaa dawladdu waa inay ka bixisaa magdhow oo ay siisaa dadka laga laayay midda kale waxaan leenahay dadka xidhan ee loo xidhay arrimaha gobolka ka socda waa in baadhitaan lagu sameeyaa ninkaan dambi lahayna si degdeg loo sii daayaa dadka Soomaaliyeed ee walaalaha ee shaqeynaya ee ganacsatada ay qaar dad iska bukayiin waa in laga sii daayaa xadhiga 24 saac ka badan uu ku jiro muwaadinku waa in dambigiisa la baaro waxaan leeyahay walaalayaal dagaal wiil kuma dhasho ee wiil baa ku dhinta salaadiinta iyo ugaaska beesha iyo dhammaan culimaadudiinka waxaan faraynaa hooyooyinka gobolka Awdal iyo dhalinyarada in xasiloonidii gobolka Awdal la soo celiyo waxaan leeyahay walaalayaal midnimadiina iyo wadajirkiina ayaad wax ku gaadhaysaan tafaraaruq iyo dagaal xumo keeno salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh madanaynayno maanta inaanu shacabku gaabino oo aan dhahno ka kaco dagaalka gala laakiin waxaan moodaa in la khasbayaba oo maamulka meesha ka jiraay war maamulada hore bay u shiri jireen bal tusaale ahaan haddaan soo qaadno maxamed ibraahim ayaal ilaahay u naxariistay meesha maamul bukaay war riyaalaha ka dambeeyay maxaan ku raad meesha maamulkaay war caruuraha lama gumaadi jirin maatooyinka lama layn jirin xoolaha iyo ceelka laga cabeeyo lama layn jirin war maamulkan ka guuxay maxaan ku raada maskaxdii SNM ee maxaan ku raada aan qarannimo xambaarsanayn ee wali u taagan maxaan ku raada ciilqabka iyo aargoosiga ee dadka ballida ku leynaya ciyaaraha kubadda ku leynaya waxaanu leenahay ma loo dulqaadan doono ma jiri doonto waxaan baa u dirayaa odayaasha culimadiinka waxgaradka gobolada waqooyi ka soo jeeda war hadda ka hor baan waxa laga yahay war hebel wakaase warnimayo waad aragtaan wixii aad wax u dhiibteen waad aragtaan waxa ay sameynayaan inaad aqli dhaama iyo aragti dhaanta inaad keentaan baanu idinka filaynaa haddii aad keeni weydaan maxaan ku radaa asaga de aqligu ka noqdana haddii Soomaalidu waxay tiraahdaa anqowga ninkii isku dhufta asaga u dhutiya war ninkii deegaankiisa iyo dadkiisa balaayo wax ka bilaaba waxaad ogaataan inaan wiilkuusuna noolaanayn asaguna uusan nabad u jiifaynin war wiilka la dilay hooyaa dhasho aabba dhalay wiilku wiilkiinu la mid yahay gabadhu gabadhiina la mid tahay hooyadu hooyaday la mid tahay war waxaan leenahay
waxa umusha u roon baa ilmahana u roon war nabadda iyo danta iyo maslaxadda deegaanka iyo ummadda Soomaaliyeed oo dhan bay dan u tahay war waxaanu ku baaqaynaa waa nabad waxaanu ku baaqaynaa waa deganaansho waxaanu ku baaqaynaa waa wada jir waxaan ku baaqaynaa waa walaalnimo waxaan ku baaqaynaa wixii xumaa in la ilaawo gacmaha la isqabsado inaan nala xasuusin oo la isxasuusin dhibaatadaan ku baaq goobtii iyadoona dawladii jirin oo maamul jirin iyadu ismaamusheen nabadgelyadeeda iyo horumarkiiga ka shaqaysay inta kalena ku casuumtay bay ahayd muxuu ahaa ku qabatay shirkii meel lagu qabtan la waayay Soomaaliland oo dhan meel lagu qabtan la waayay wati boorama isugu keentay 4 bilood nabadgelyadeeda iyo muxuu ahaa joogitaankooga iyo wada hadalkooga muxuu ahaa ay hogaaminaysay in la yiraahdo markaa maanta waxay ku soo laabatay xilli 90kii ka dambeeyay ka sii dambeeya waayaan darro in la koobciyo bay waxay isweydiintu mudan tahay halkee bay markaa nabadgelyo xumadu halkee ka soo bilaabantay waxay ka soo bilaabantay inay dadka soo degan goboladaas galbeedka degani ay yiraahdeen wax wada lahaanshihii iyo saami qaybsigii iyo muxuu ahaayay dalkii in la wada maamulo oo la yeesho muxuu ahaa power sharingkii inay muxuu ahaayay uu yahay aad u dheeliyay oo dhinac markaasi u wada janjeero cabasho silbaxnimo ay ku dheehan tahay ayay soo gudbiyeen tabashadooda oo odayaashooda iyo waxgaradkooga ay muxuu ahaayay keeneen Hargeysa oo intaasoo maalmood la joogeen in wax laga qabto albaabka laga furo aayar bayska noqday Soomaalidu waxay tiraahdaa ragciil cadaab ka dooray rag qaarkood waa u sabreen oo waa iskaga adeegeen rag qaarkoodna waa ka xanaaqeen oo markaasi way ka dudeen suldaanadii dhaqanka qaar ka mid ayaa doo suldaan wal ka mid ayaa duday suldaan duday maxaa la yeeli jiray markaa dhaqan bay noo lahayn oo muxuu ahaa 95kii beel dhan baa duday markaasi Itoobiya tagto federaal baan doonaynaa tiri si nabadgelyo ku dheehan tahay si wada hadal ku dheehan yahay si dhaqan iyo milga ku dheehan yihiin ayaa loo raadsho lagu soo xirigeliyay dhaqan waxa lagu raadshaa dhaqan baa lagu raadshaa hab dhaqan baa lagu raadshaa hab wada hadal baa lagu raadshaa hab nabadgelyo lagu raadshaa laakiin taa jawaabteedii waxay noqotay in la yiraahdo muxuu ahaa gobolka ciidan ha loo diro suldaamo wabanaha la soo qabto taa kaliya isagiina markaa isdifaac uu magan galo markaasi muxuu ahaa dawladaha daris uu markaasi u magan galo haddaba maamulka hadda ka jiraay waxaad moodaa arrin walba inay sii fogeynayaan xaalad kastoo dhacdaba inay uga sii darayaan waxaa suuragal ahaan lahayd in si diblomaasiyad leh iyo si nabadgelyo leh arrintaa lagu xalliyo si dhaqan leh in lagu xalliyo in tabashadii muxuu ahaa beelaha galbeedna si muxuu ahaa miyir qaba looga jawaabo ayaa muxuu ahaa noqon gobolku isagoo muxuu ahaa khayraadkiisu hodan yahay xeeb ballaadhan leh bal waxaad mugtay waxaad qaadataa Somaliland 850 kilomitir weeyaan xeebteedu waxay isku soo ururtay inay dekada kaliya berbera noqoto dadka muxuu ku nool xeebaha galbeed waxay dabceen inay dekadahooga furtaan dabacooga muxuu ahaayay ay mugtay ay la sameeyaan dariskooga ay bacmashar la sameeyaan laakiin taa waa laga hortaagay inay wax ka soo degaan iyo wax lala sameeyo walba markii horumarkii gobolka wali gaaja loogu dhintaa oo biyo la'aan baa loogu dhintaa muxuu ahaayay banka galbeedka loogu dhintaa oo ilaa hadda ka taagan oo horumar la'aan baa ka jirta cabashada noocaas halkii laga jawaabi lahaa horumar iyo dalka in dekada badan loo sameeyo oo dalka la furfuro horumar loo sameeyo halkii laga jawaabi lahaa waxay noqotay cid baa cabanaya cid baa Somaliland diidan bay noqotay taas baa laga jawaabay taasaa keentay in gobolkii laga dhigo zone military laga dhigo zone military dadka laga sii cadhaysiiyo waxaa dana foolxumo weyn ka sii ah in la yiraahdo cid kasta oo muxuu ahaa la jirta oo magaca Soomaali weyn ama mugti sheegta in la yiraahdo hal la xidhxidho oo muxuu xabsiga hal la dhigo oo hal la ciqaabo in la yiraahdo anu waxaan soo joogay 2-3 sano ka hor doorashadii u dambeysay deegaanka iyadoo calanka buluuga daanta koonfureed ee Hargeysa uu ka taagan yahay oo la geli kari waay oo cidina qaban kari weyday laakiin si waan iyo wanaag iyo muxuu ahaa wada hadal lagu dhameeyay maxaa keenay markay cabashadu galbeed ka timaado in dagaal iyo military laga hortago maxaa keenay in dhaqan iyo wanaag iyo horum iyo muxuu ahaayay iyo si ilbaxnimo leh iyo si wada hadal in laga jawaabay waxa foolxumo weyna iyadoo 720 waxgaradkii iyo baacmashtarkii iyo salaadiintii nabadda wax ka tari lahaa magaalada Boorama nabadda wax ka tari lahaa iyadoo jeelka ay ku jiraan oo si waliba qaab daraas ay yihiin argagixiso iyagoo muxuu garbaduuban Hargeysa lagu soo guray ayaa haddana waxa la yaab leh
in ciyaarihii gobolka lagu qabto oo la yidhahdo ciyaalkii ha damaashaadaan isma qabato in magaalada damaashaad uu ka socdo iyo in dadkii waayeelka indhaha u ahaa iyagoo garbaduuban ay ku xidhan yihiin muxuu ahaaye hargeysa ku xidhan yihiin in xal loo yeelay isma qabato garoonkii ciyaartii damaashaadka loogu talagalay in soona military laga dhigo oo waxa la wixii Soomaaliland ay haysatay ciidan iyo markaas ay technique haysatay ay geeyo ciyaal cabsoonaya inay muxuu ahaay ciyaaraan isma qabato ardaygii hadla wiilkii hadla ama muxuu ahaay askari wada murmaanba inuu rasaas ku jawaabo oo ciyaalka loo sadqeeyo si ay ciyaaruhu u socdaan yana waa xaalad mid waliba ta kale ka sii daran jeel la xiray oo qaarkood salaadin yihiin xanuunsanaya macaan qabaan dhiikar qabaan oo si xun loola dhaqmay oo taariikhdu taas ay godob weyn tahay taas in sida ugu degdegsan bilaa shuruud lagu soo daayo taasi waa codsiga aanu jeedinayna waxaan jeedinaynaa dadka muxuu ahaay awdal iyo galbeedku hadday rabshadi ka dhacdo qorilugud iyo muxuu ahaay iyo laascaanood gurmadka from saylac ayuu ka soo bilaami jiray oo tegi jiray gurmad inay geystaan waxaan leeyahay waxgaradka Soomaaliland dhibaatada awdal ka aloosan inay muxuu ahaay wax ka qabtaan si wada jira loogu gurmado maamulka loo caqli celiyo nabadda dadka laga shaqeeyo muxuu ahaay isu soo dhaweeyo bulshada aan xoog lagu muqoon waxgaradka siyaasiyiinta ururada xisbiyada siyaasadda dhammaantood golayaasha goortida waa inay arrintaa u guntadaan oo intaanay meel xun gaarin ay markaasi muxuu ahaay gurmad degdega gaarsiiyaan dadkaana godobta laga galanayo bixiyaan sida ugu degdegsanna guryahooda ugu soo celiya talabaad waxa weeye dadkan gobollada awdal haddii ay qaarkood badankoodu leeyihiin dareen soomaalinimo hadday leeyihiin waxay ahayd ummadda Soomaaliyeed inay ku abaalmariso ummadda Soomaaliyeed ee waxgaradka dawladda muxuu ahaay federaalka waxaan leenahay xaaladda ka socda Soomaaliland ka socota iyo gobollada galbeedka in isha lagu hayo loo caqli celiyo muxuu ahaay maamulka meesha ka jira inuu dalkan nabadgelyadooda iyo wanaagooda iyo horumarkooda ka shaqeeyo haddii kale aanu matali karin oo muxuu ahaay si kale loo furdaamiyo waxaan leenahay beesha caalamka iyo ururada xuquuqul insaan waxa ka socda Soomaaliland inay si fiican isha ugu hayaan xaalad xuquuqul insaan baa ka socota oo leh dil oo leh xabsi bismillahir rahmaanir rahiim xildhibaanada Soomaaliyeed ee halkan isugu yimid guud ahaan xildhibaanada Soomaaliyeed baa halkan nala fadhiya gaar ahaanna xildhibaanadii USB baa fadhiya waxaanu USB-da iyo Soomaalidu isugu timi waxa weeye wax damqasho leh marka hore waa tacsi aanu tacsiinayno ilmihii dhintay iyo waalidkoodii iyo gobolka gaar ahaan guud ahaan baanu jeedaa marka labaad maalintii Somaliland wax la amkayay waanu joognay booramaan joognay waxaan arkayno noo muuqanaysay in dawlad Soomaaliyeed ay burburtay ha burburtee inaanay qabiil iyo laba samayn karin dawlad Soomaaliyeed iyo midnimo iyo annaga mabda iyagu ahaa markaanu halkan imanayno ilaahay maga kamaanaan tanaasulin kana tanaasuli mayno midnimada Soomaaliyeed iyo dawladnimada waxaana dhibayaa waxa weeye xaafadihii oo la laynayo oo carruurta la laynayo cid waliba way ka damqanaysaa Soomaali dhan baa ka damqanaysaa waa gobolka keliya ee goor walba carruur baa la laayay la yidhaah askarina ay layso xabad lagu furo gobol kale oo jira waqooyiga oon ka maqalnaa ma jiro gobolkaan baa mar walba la xabadeeya maalinta aanu Boorama joognay shirka lagu hayay inuu raggii way nool yihiin in badani hadday maqlayaan raggii aan ka wada hadlaynaynu lahayn war waxaas suuroobi maayee carruurta garaacashada inta Soomaali ilaahay si odhanayo way joogaan maalintaa kuwa la laynayo ama kuwii hore ahaadaan ama kuwana ahaadaan yacni maalintaa caloosha laguma sidin midna
وإلمه ضمبوي قوي باو حيراها نربح حق ولد سيد قيدي مالي رشاد يسوع حجر دورة عبدي تيبي ما أنت لدول تانية رشي بيسوع وحي ولا السبيل لها ولا مبدا يسي ولا ومعلمتي ركبنا يصلح الجنيه هل كيبي ما أنت كتقبل ويدو هل كاقبي قاسي تانية اللهم نحرسته أبوانكي قارية اللورجري سوغانيانكي يوغويانكي أرسل ديرا قويسي أو دردارا كدغي markii waqooyiga la isugu yimid Hargeysa waxaan ka maqlay in dardaaranka uu bixinayay oo leeyahay qarar ayaan baa iman doonta oo ku hal qabsanayo labadan gobol ee hareeraha kaga waliba marka ayaan baa iman doonta dib ha loo raaco dhalinyaro ka akhrista ayaantii baa maanta la joogaa ayaantii ayaynu maanta joognaa waxaan soo soconaa ayaantii awgaariya saadaaliyey waynu taagannahay uma malaynayo inaan halkaa intay dib uga noqoto dib u fiicnaanayso maamulkaas Siiraaye oo jabhad hogaaminayo jabhaddii dee maskaxdiisa ku tababaratay maamulkaasi way ka waxaribay qolaana looma jeedno qoladu kuwa midnimada nala aaminsan bay leeyihiin kuwa raacsan bay leeyihiin kuwa kuraasidoon dhowr cisho reeraha xukuna bay leeyihiin yacni reer uma jeedno waxaan u jeednaa waxa weeye wixii aan mabda'a soomaalinimada aaminsanayn isku mabaadi iyo isku shuqul mayin waana waxa keenaya maamul xumada caruuraan lala ciyaarin baa jirtaa la yidhaha caruurtii soo ciyaar tagtay oo qori la daba sito oo qoriya lagu waardeynayo cid laga waardeynayo anagu ma garanayo ayaa caruurtii markay ciyaartii isku xanaaqeen caruurtii magaalada la xabadeeyey oo la laayay suuragal maaha markaa waxbaa kubadnaha ciyaarina ciyaarna hala ciyaarina waxaa keliya hoo lagu aarsan karaa qolaa laga aarsado maaha reebela lagu duula maaha laakiin waxaynu ku aarsanaynaa dhalinyaro haddaad maqlaysiin midnimo dowlad Soomaaliyeed oo la helay inuu ku aarsanayno haddii dowlad Soomaaliyeed la helo isticmaalkuba dadka uu dhibi jiray kolkii calanka la helay dowladda noqday waxa la lahaa waa lagaga hagar baxaya qabyaalad baa meeshiisii soo gashay taasaa mushkiladda in lagu wada ilaa imika marka midnimo oo waay aragnimadii laga dhaxlay dhibaatooyinkiina soo maray dib loo saxo oo la hagaajiyo ayaynu ku aarsanaynaa midnimo ogaada maalinta dhaweyd Soomaaliya toosa yaa laydin xabadaynaya idinkoo leh Soomaaliya toosada haya Soomaalidu way seexataa way hurday isticmaalka in badan maalin bay kacdaa maalintaa Soomaalidu ma kala hadho hurdadeeda dheeraatay insha Allah way dhowdahay waa midnimo Soomaaliyeed iyo halgan Soomaaliyeed iyo gobonnimo doon qolo laga xoroobo baraayada laga xoroobo waa soo socda halgankaa niyadda ku dhisa kaas baad nala qaadaysaan waanu soo dhow yahay Soomaali way toostay toomay ku jirtay toomadii xusuustii hadday bilaabay